سأد وقتين تضبط كلا صودا في علماء الصوماليات أو قار كوي وما قديرة يموق ديرة الصومالي ذا كم ذا أيها دبده يجودها بالسجايمد مرتقات الله الشيء وفي الإمام الصومالي لاند إن هالكاي مادان كل وحي كوضع لنا يجا قرنا يلا لكن وحي وربعين الله صو بندقي بانوكار لنا علماء تيمد مركا وحي كوسو باجمين حل حساسية أو ذا قرنا إنسان وحي سعود الصراع لقدم باوحو كده سعودي أما الضاد سكول كريستان قوته اللي يراده أبارس سكول أبارسو سكول الجامعة ديسا اللي يراده برواقو ما كان أبار يبرواقو مجلس وضوحا لقى في ليي إنه يقول ياران مامل كهالكا جوغا الديمقراطية دا أدو بومبونية إنه كتاب كإلهي قاتان والشريعة كل رغمان لا علماء وحيكوين وإنه كتاب كما تليان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام إنه مامل كأقول ياري دونان شريعة إنه قاتو علماء maxay soo kordhiyeen waa su'aal hadii intaan aanay ka hadal culimadu meeshii markay tageen dad badan baa u yimid aad baa loo soo dhaweeyay hatta airportku sheeg wadaadadii kamida airportka sidii wasiirkii baa la ii soo dhaweeyay bir aad buu soo dhaweynta ugu amaaneen si fiican baa loo soo dhaweeyay cunto iyo cabitaan fiican baa la siiyay laakiin sheekadii wadaadadii maxay ku soo dhamaatay inay maamulkii dulmiga aan ku haysan isaga u duceeyaan waxaan naftayda iyo dhammaan dadka ay maqlaya dibad iyo gudaba culimo iyo caamaba leena ilaahay aan u laabano sheekh hebel miyaa khaldama meesha anbiya ma dadkani malaa'igna ma aha macsuumna ma aha sheekhii markaan uu khaldamay hadduu shalay kula fiicnaa wuxuu ku khaldamay nin dhaalima oo kitaabkii la dagaalamaya oo kristan iyo qoom luut difaacaya inuu u duceeyo ugu duceeyo waliba cimri dherer iyo ku sabar mid baa wuxuu yiri mudana madaxweyne waa lagu dhibi doonaa qaar baa wax ka sheegi doona bud baa lagu la soo bixi doona ku sabar muxuu ku sabri ma dimuqraadiyadu ku sabri waxay soo kordhiyeen waa maxay in maamulkaasu saxiix yahay dadkii ka hor yimidna dhaalimiin yihiin wax kale maana soo kordhin dadkii ugu hor yimid arrintan ay sameeyeen ee shareeca diidka ee qoomuluudka ee kiristaannimada culumada waa gafeen marra waaxid si xoog leh u gafeen ilaahay u soo laabta إلهي وأركا واحد سميسين ونقدر ويدينيا ظلمك ماشى كجرا يشركك ماشى كجرا وأتكا مستن حقيق وإذن ويدينيا مراتك هو إن فرين وفري أنت انكري كري يقول أما ها أقول هذا أما هي سوء هذيان أما قارب بدنا موضة بالشيخ بالنص مشيخ بالباسل عليه قارب برديه دون شيخ بالواخل دم النبي معها شيخ بال معصوم معها واخل دميان أنا أقر سنة بشر كأنه خلدمه لكن كتمان الحقيقة مصيبة وين مصيبة وين إن حق جرا أو كوم مغضى أتقرسه ظلم جرا أو كوم مغضى أتقرسه لكن إلهي كتاب كسر له ما مولانا وربنا شيخ قروح ذو محي ترى مرادها دلالان دول كان الشراء لقى صبحه ديارنا أنكوس عنه إلهي أنكو كفر لأن جيسك أفريقيا ولي كتاب كما تشيرو ولي شريعة الله عندكم ما مش ماله علماء الله كبقوا تذكر رنت وشجع ونكر أما وهنوني أما وديدي لكن هكا قرين قال الله قال رسول الله وأي رادين أذيكم حد مقدشتين ما ملك مقدشوني وإذا كتاب كقاطع ما عليه والبان لهنا ورسم دانو ها إن يلاني إن أقولادان أنا أود مليهن لكن برلمانكي مدحوينه قولياشي برلمانكا قولياشي وزير رضا مالو والبان لا تاغناي الهي كبقى واضمن انسان الله هورتغ انسان والله إذن حسابنا يا شريعه الهي قاطع ku dhaqma soo roga kitaabka ilaahay ku khaldameen inay ka aamuseen waayahay hadaa tiraado sheekhow anigu kitmaan cilmi kama wado ee waxaan ka wadaa meeshii hadaan waxba ka bedeli karin codkayguna uu waxba bedelayn inaan iska aamusaa iron haweenkii iyo caruurtii baa yiri kitaabka alla qaatooy banaanka la taagan meesha haweenkii iyo caruurtii la qaylinayaan adigii sheekha ma sheegi kartid yaad u sheegay ma culimadii madaxtooyada Hargeysa lagu bartaqaaday baan oran karin mudana madaxweyne waxaan ka codsanaynaa wixii kala dhan soo qabatay kitaabka ilaahay qaado masaakiinta xirxiran iska soo sida meeshan foosha xun ee cambaartaana naga dami ma dhigi karin waa adduunkan xoog leh maanta oo awood leh
oo sumcad leh waxaad tahayba go' baad ka qaadanaysaa qabri baad gelaysaa qabri amaama allaahi baad istaagaysaa adoo xaqiira daciifa waxba aan awoodin waxba aan inkiri karin maskiina in lagu naxariisto ninka odayga Hargeysa maamula iyo qolyaha kale Muqdisho maamula iyo kuwa laanlaanada la baxay Soomaalida maamula dhammaantood Ilaahay ka baqa waad dhimanaysaa haddii 50 sano dambe sii noolaatana Ilaahay baana hortagaysaan qabri baad galaysaan fursad baad haysataan wali aad ku toobad keentaan fursaddu waa intaad nooshahay Ilaahay u soo laabta rabbul caalamiin u soo laabta rabbul caalamiin u soo laabta Ilaahay u toobad keena reer Hargeysa waxaan oran lahaa shacabku abaarsa waa dumi kartaan adinkoon maamulba u istaagin dhagax iyo ul baad ku kala cayrin kartaan makhnuudiinta kristanka meesha isugu yimid waanad u doodi kartaan ninka la iska dulminayo fursad buu haystaa waxaan leenahay imisa nin quwad badan oo ka xoog badan caalamka soo martay imisa soo maray Adolf Hitler Joseph Stalin Jamal Abdel Nasser General Mohammed Siad Barre Habib Bourguiba ninkii la oran jiray Saddam Hussein ragii waaweynaa ee hantida iyo awoodda lahaa Franklin Roosevelt Churchill waa dhinteen kulli waa tageen aakhiray aadan adna waa tagaysaa adna waan tagayaa adna dadkoo dhan waa wada tagayaan بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال إن شاء الله تعالى خميستنا وحن ربائنا كذا هذلو مؤتمر كيام الشركي ويناء علماء الصومالي وتضبات كده ويتكو قبصدين مقالة هرقيسة محاك الصباحي محوس السوكر ديي ومهم arrintan in laga hadlo wacyiga waqtigeedana waa la joogaa saad ogtiin toddobaadkii hadda la soo dhaafay culimo Soomaaliyeed oo qaar kuwii ugu magac dheeraa iyo muuq dheeraa Soomaalida ka mid ah ayaa dibadda iyo gudahaba isaga yimid martiqaad sida la sheegay uu fidiyay maamulka Somaliland inay halkaa yimaadaan kolley wixii ay ka wada hadleen iyaga garanaya laakiin wixii warbaahinta loo soo bandhigay baanu ka hadlaynaa culimada timid markaa waxay ku soo beegmeen xilli xasaasiya oo wada garanaysaan waxa socday siraac legdan baa wuxuu ka dhex socday ama dood iskuul kristanku wato la yiraahdo abaarso iskuul iyo jaamacaddiisa oo la yiraahdo barwaaqo maaqan abaar iyo barwaaqo meesha isugu keeneen iyo maamulkii halkaa ka talinaya oo dhinac wada ah iyo wadaadda ka soo horjeeda oo ugu caansan yahay ninka hadda la xiray dhalinyarada Coldon doodaas oo socota oo waliba ninkii ka soo horjeestay Coldon oo la xiray ayay wadaadaduna yimaadeen shalo kale ama daraado kale markii isaga la xiray ayaa mu'tamarkiina furmay wadaad caan oo badan oo Soomaaliyeed filayo ururka al-i'tisaam iyo tabliiqi inay isugu jiraan maxaa laga filayay dadweynuhu maxay ka filayeen dadkii ayagu garanaya oo malaynaya baab gaar ah dadweynuhu waxay ka filayeen haddana ay qaar badan ku hongoobeen baan rabaa inaan taataabto marka koowaad waxaa laga filayay inay ugu yeeraan maamulka halkaa jooga ee dimuqraadiyadda aad u buunbuuniya inay kitaabka Ilaahay qaataan oo shareecada ku dhaqmaan la culimo waxay ku yihiin waa inay kitaabkii matalayaan iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam inay maamulka ugu yeeri doonaan shareecada inuu qaato koow midda labaad inay ka hadli doonaan shirkiga qabuuriga ee ka jira dhulkaas oo ugu caansan yahay aw barkhadle oo duleedka magaalada Hargeysa oo boqolaal ama kumanaan dad ay ku aafaysan yihiin maalin walba u yeertaan wax u gowracaan magan galaan maadaama mu'tamar weyn oo Ilaahay baa weyn yani aad u ballaaran oo culimaha u yimid meeshii inay shirkiga inkiraan
taana ma dhicin sababtana waan tataaban doonaa midda saddexaad waxaa kaloo laga filayay inay yidhaahdaan waa in iskuulkan abaars dowladdu ay xirtaa ama si kor ha ugu sheegaan ama si hoose ha ugu sheegaan iskuul kiristaannimo iyo qoomuluudnimo laga faafinayo oo baraha bulshada yaalloon qarsoonayn inay dadka inay maamulka kala hadlaan in la xiro maadaama maamulku marti qaaday oo la dhegaysanayo dad masmuuciin ay yihiin taasina ma dhicin sida muuqata wixii hoos loo yirina aad baan u baadigoobnay weli ma hayno wax hoos loo sheegay midda afraad inay kala taliyaan oo yidhahdaan soo daaya nimankan ka qayliyey waxan ee manaha yidhi shareecada lagu dhaqmo ee yidhi meeshan qoomuluudka iyo kiristanka lagu faafiyo ha la yska qabto nimanka saasood xirteenna soo sii daaya oo ugu horeeyo cabdilmaalik coldoon iyo wadaad kale ayaa maaragtay caana iyaguna intiiba ma dhicin afartaa arrimoodba ma dhicin inay shirkiga qabuuraha ka digaan oo min yarowe burco ilaa iyo meesha la yidhaahdo duleedka hargeysa ilaa gebile iyo arabsiyo laga helo inay si culum ahaana uga digaan bilcagsi waxay culummadu yidhahdeen waan arki doonaa kow inay shareecada islaamka ugu yeeraan qoladan marti qaaday laba wasiir baa shirka ka qayb galoo ku jiray wasiirka diinta iyo ooqaafta iyo wasiirkii arrimaha gudaha idan wuxuu ahaa shir dowladdu maamulaysuuba ahaa oo lug weyn ay ku leeyihiin waa dowladda meeshaas somaliland tan saddexaad taana sharcigan waa kalamaanay hadal midda saddexaad oo la filayo hadda aan ka hadlayno waa inuu xarumaha dhaqanka xun la xiro xarunta dhaqanka hargeysa iskuulka abaarso iyo jaamacaddiisa oo intuba carruurtu garanayaan waxay faafinayaan qoomuluudnimo iyo kiristaannimo bannaanka taallaa oo nin ingiriisa iskale abaarso school nin xaniila maraykana oo isaga laftigiisa uu yahay qoomuluud nin la qabo wey balaayaa qabtee ibliis ah inay kaasoo kala daawadaan may ahayn marka in culummada waxaas ka digaan waa la filayay kolley dadweynuhu taasuu guuxooda u badnaa soomaali meelay joogtaba maadaama shir weyn oo culimo waaweyni joogta oo mu'tamar halkaa lagu qabtay iyo inay ka hadlaan dadkan dulmiga lagu xirtay ee intay ka dhiidhiyeen masaladan keliya gudaha lagu guray weliba ay xor yihiin kuwa kiristanka ah bannaankay joogaan haweenaydii joy isa baa la yidhaha kiristaannimada faafinaysay ninkii qoomuluudka ahaa ee maraykanka ahaa haddayba joogaan qaarkood inay ka baxeen baa la ii sheegay hargeysa oo dhulkoodii si ku meel gaara ugu noqdeen maadaama dadweynihii ay kaceen oo caroodeen laakiin macallimiintoodii iyo ardadoodii hawshoodii waa socotaa kuwaasu waa xor kii ka qayliyeyna guduhu ku jira culummadiina waa shiraysaa kamana aanay hadal soo arrin foolxun maaha in lagaa yeelo iyo in lagaa diido waa arrin gaara oo culimmadu awood uma leh ay amar ku siiyaan muuse bixi war sidan yeel miyay dhihi karaan maya laakiin tala bixin bay iyagaa asagaaba marti qaaday tala bixin bay ugu tegi karaan okay intaa haddaanay dhicin marka oo meelihii faaxishada in la xirana aanay kala hadal haddii la is yidhaahdo maxaa culimmada keliya wadaadku ku eedayaa muqdishoba waxaa laga helaa meelo fawaaxisho iyo qurun iyo haween lisbian iyo qoomuluud baa laga helaa nacam laakiin culimmadu way ka qayliyaan kow laakiin culimmadan kale joogta magaalada culimmadan kale ee magaalada joogta oo ilaahay baa mahadle fara badan ayaa xataa waxay ka qayliyeen markii la yidhi waxaa laydin samaynayaa gabadhu ay keentay baarlamaankiiba waxay keentay xeerkii la ohan jiray xeerkii bahalkii maxaa la yidhaahdaa xeerkii jinsiga miyay ohan jireen kii qoomuluudnimada lagu dalbanayey baarlamaan gender miyuu ahaa gender ambalance markii la keenayey qabowga ma rabaan marka ayay ka qayliyeen xataa suufiye qabuuriyaha ka qayliya iska dhaaf dad fiican oo xoogaa macquuleh qabuuriyiin ahlu shirkiga xataa ka qayliyey maxaa yeele waa faaxisho foolxun marka reer muqdisho waa hadlaan waxaan rajaynayey nimanka martida loo ahaa reer hargeysa wadaadada iyo kuwa u yimidba inay arrimahaas ka hadlaan laakiin bilcagsi maxay ka hadleen maxayse soo kordhiyeen dhegaysta
علماء maxay soo kordhiyeen waa su'aal haddii intaan aanay ka hadal culimadu meeshii markay tageen dad badan baa u yimid aad baa loo soo dhaweeyay xataa airportku sheegay wadaadadii kamida airportka sidii wasiirkii baa la ii soo dhaweeyay bir aad buu soo dhaweyntu ugu amaaneen si fiican baa loo soo dhaweeyay cunto iyo cabitaan fiican baa la siiyay laakiin sheekadii wadaadadii maxay ku soo dhamaatay inay maamulkii dulmiga aan ku haysanay isaga u duceeyaan abaarso ilaa waxay noqotay cambaar hargeysa ku taalle meesha naga foge maysa dhihi karin way dhihi karaa laakiin in xafiladii lagu soo gabagabeeyo shiikh walba mar inuu taariikh nololeed ka sheekeeyo hargeysa iyo amnigeeda ka sheekeeyo barwaaqada meesha ka jirta ka sheekeeyo waa cover culimadii waxay noqdeen lagu qariyay dhibkii meesha ka jiray meesha aad shiikhow fadhidood ku shirayso dabaqa sare hoostiisa nin baa ku xiran oo wuxuu u xiran yahay waa maxay ilaahay kitaabkiisa hala sare mariyo ayuu u xiran yahay korna adaa ku shirayo oo cabitaan qabow lagu dhigay wasiiradii xirayna kula fadhiyaan bal ka war miyaanay damiirka insaanka iyo damiirka muslimka iyo damiirka caaqilka aan arrintaas gubayn coldoon isma naqaan qaraabana ma nihin weligeena lama hadal laakiin waxa uu sheegay waa sax kitaabka ilaahay hal la qaato ma sax waa masoo khalad sax weeye waa ku ayidsana wax kale oo ka aqaanana wallahi ma jiraan aan ahayn kitaabka ilaahay hal la qaato yiri waa arrin fiican adar cid walba oo adduunkan soo martay bashiiq taaquud walba wuxuu leeyahay culimo u fadhida u fatwata adduunyaha ka raacin ilaahay ka baq anigu ururka tahay ma danaynayo een magacaaga iyo qabiilkaana muhiim ah laakiin waxa muhiim ah war ilaahay kitaabkiisa aan qaadano Soomaaliya ilaahay aan u toobad keenno inaan badbaadno adduun iyo aakhiraba kulligan waanu doonaynaa badbaadaduna meel kale kuma jirto meeshan la adkeeyay ee ninkii ka hadlaa xabsi ku mudanayo ee ninkii ka hadlaa lagu dilayo ee gaalo dhan ay necab tahay badbaadada halkaas ku jirta oo waa maxay kitaab allah wa sunnata nabiy alayhi salatu wasalaam عطنر بانو كلنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلهي كتاب كيسا يا سنة النبي يا بدبادة كجرتا يا الله قرنين ومدى الله شاكو آيات داس غيبتها دنبا الله وحيري يعني كو أساس سمين يقول بقى قونت له فما أصبرهم على النار سبحان الله النار وقت كيسي بدنا نكاسقو ما انتوك جريمة ماشى كجرت كأمصي نبينا يري عليه الصلاة والسلام من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام النار حكمنا رب بأفكار الله قليل إياه نيكا كأمصي هذا ترى وركتاب إلى كل رقم ما حكترنما دورت محيته لفت هذا سؤال بقى إلا قف كير هذا الله لابته كتاب كذا الله قاته وحكتر إسكا إلاله حكتر هذه اللي جوا الكتاب كذا كيزو جرا سنة دان كيزو جرا صح أنا حكتر كهو هذا وكفر أحسن هيبة حكتر هذه اللي جوا كتاب الله الربا سنة النبي محمد الرأسي وأصل را ما بشرفه ورميانا عندنا على كتاب كتيرين ما صدقنا فلنا كتاب يا بيبل ما ودحينا ما كتاب الديمقراطية ما ودحينا هنا كتاب كمجرنا مثل مجرنا كل جنا حجر بنا ما نهي حق أنجرنا وادنك الله أكبر دنك كتاب كانوا جرنا